Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku adkeysanaya in aysan jirin maxkamad ama hay'ad militari oo Israel ka hor istaagi karto in ay gaarto hadafkeeda in ay baabi'iyaan ururka Xamaas. Waxa uu yidhi qofna nama joojin doono ama heeg ha ahaato ama cid kale, ayuu yidhi shir jaraa'id oo uu isagu ka warbixinayay xaaladihii ugu dambeeyay. Waxa uu yidhi waa suurtagal oo lama huraan in la sii wado ilaa guusha, waana samayn doonaa buu raaciyay, isagoo sheegay inta badan guutooyinka Xamaas ee Gaza la baabi'iyay. Netanyahu ayaa waxaa saaran cadaadis sii kordhaya oo gudaha si uu ugu soo celiyo maxaabiista hadda lagu haya Gaza muddo 100 maalmood gacanta reer Falastiin, iyadoo kumanaan qof ay isugu soo baxeen Tel Aviv si ay ugu baaqaan in la sii daayo maxaabiista xiran. Kooxaha hubeysan ee kasoo horjeeda Mareykanka ee Ciraaq ayaa dhanka kale sheegtay weeraro cusub oo lagu qaaday saldhigyada Suuriya. Xoogagga kasoo horjeeda Mareykanka ee ku sugan Ciraaq ayaa sheegtay weeraro hor leh iyadoo oo lagu qaaday 2 saldhig oo Mareykanka uu ku leeyahay dalka Suuriya, waxaana weeraradan ay noqonayaan kuwii ugu dambeeyay ee sii kordhayay. Dalladda Islamic Resistance ee Ciraaq ee la safan Iran ayaa sheegtay in ay u adeegsatay diyaaradahan duuliyaha lahayn weeraradaasi si ay u beegsato 2 saldhig oo Mareykan ah oo mid ka mid ah uu ku yaalo goobta saliidda ee Al Cumar ee gobolka Deir az-Zor iyo mid kale oo ku yaala agagaarka tuulada Al Qadra ee waqooyi bari Suuriya. Ilaa hadda ma jiro wax war oo ka soo baxay dhinaca khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca. Waxaa jiray in ka badan 130 weerar oo lagu qaaday hantida ciidamada Mareykanka Ciraaq iyo Suuriya tan iyo markii uu dagaalka bilowday. 10 askari oo Mareykan ah ayaa la dhaawacay, balse ma jiro wax dhimasho ilaa hadda. Dhanka kalena, muuqaalka Xisbullaahi baraha bulshada aad ugu faafay ayaa muujinaya weerar lagu qaaday askarta Israel ee ku sugan aagga xadka. Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in ay beegsadeen askar Israa'iiliyiin oo isugu soo ururay meel u dhow xadka labada dal. Kooxdan ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya taariikhda uu dhacay weerarka 8 Janaayo, waxaana uu muujinayaa dhismo ay ku sugan yihiin askar kadibna la riday gantaal si toos ah u dhacay. 8 Janaayo waxay ahayd maalintii Israel ay dishay taliyihii sare ee Xisbullah kadib weerar xagga cirka oo ka dhacay koonfurta Lubnaan. wixii warkaasi ku soo kordho waan soo gudbin doonaa. dhinaca kale, bal warbixinadii ugu dambeeyay ee dacwadda ka dhanka ah Israel ee la gudbiyay ayaan eegaynaa. Namibia ayaa dhaleeceysay go'aanka naxdinta leh ee Jarmalka ku taageeray Israel kiiska xasuuqa Mareykanka caalamiga ee cadaaladda ee ICJ ee Koonfur Afrika, iyadoo dagaalka Israel ee Gaza uu galay maalintii 100aad. dhegeysi dadweyne oo amaba dacwadda dhegeysigeeda uu socday 2 maalmood oo uu ka socday maxkamadda adduunka oo ah hay'adda ugu sarreysa sharciga qaramada midoobay ayaa dhacay Khamiistii iyo Jimcihii, iyadoo Koonfur Afrika iyo Israel ay soo bandhigeen doodahooda. Koonfur Afrika ayaa maxkamadda u sheegtay Khamiistii in weerarka cirka iyo dhulka Israel kaasi oo baabi'iyay inta badan deegaanka oo ay ku dhinteen ku dhowaad 24,000 oo qof oo rayid ah, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta caafimaadka ee Gaza, looga dan lahaa in lagu baabi'iyo ama lagu yareeyo tirada shacabka reer Falastiin ee Gaza. Israel waxa ay Koonfur Afrika ku eedeysay in ay soo bandhigtay aragti qalloocan oo ku aadan colaadda, iyadoo beenisay in howlgalka militari ee Gaza uu yahay olole xasuuq oo ay dowladdu wado oo ka dhan ah Falastiiniyiinta. Bayaankan ka soo baxay madaxtooyada Namibia ayaa intaa ku daray in Berlin Jarmalka in ay iska indhatirayso dilka Israel ay ku dishay in ka badan 23,000 oo reer Falastiin ah. Gaza iyo warbixino kala duwan oo qaramada midoobay ka soo baxay oo muujinaya barakaca gudaha 85% dadka la go'doomiyay 2.3 milyan oo qofood, iyadoo ay jirto cunno yari ba'an oo dhanka cunnada iyo adeegyada muhiimka. Madaxweynaha Namibia waxa uu muujinaya walaac weyn oo ka qabo go'aanka ay la xiriirtay dowladda Jarmalka Jimcihii, kaasi oo ay diiday eedeymaha markaasi damiirka oo ay keentay Koonfur Afrika. baa la yiri ma jiro qof nabadda jecel oo iska indhatiraya ama iska indhatiri karaya xasuuqa lagu hayo Falastiiniyiinta ee Gaza, buu yiri. Bayaankan ayaa lagu sheegay in Jarmalka uu xasuuqii ugu horreeyay ee qarnigii 20aad ka geystay Namibia intii u dhaxaysay 1904 ilaa 1908, kaasi oo 10,000 oo Namibian ah oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen xaalado bini'aadanimo iyo arxan darana waddankaasi ay ka dhaceen. ICJ waxa ay u badan tahay in ay soo bandhigto cabir ku meel gaar ah maalmaha soo socda, laakiin xukunkii ugu dambeeyay waxa uu qaadan doonaa sanado,
koonfur afrika ayaa ku boorisay maxkamadda inay amarto in si degdeg ah loo joojiyo duulaanka militariga Israel ay ku hayso Gaza. koonfur afrika ayaa dacwadda ICJ u gudbisay 19 Diseembar iyadoo ku eedeysay Israel inay xasuuq ka geysatay Gaza. dhowr wadan iyo hay'ado caalami ah ayaa kiiskeedii ku taageeray koonfur afrika, halka Israel ay taageero ka heshay Mareykanka oo ah shirkadda ugu weyn ee hubka siiya saaxiib dhowna la ah. dhowr hay'adood oo caalami ah oo ay ku jirto Human Rights Watch ayaa go'aamiyey in Israel ay dambiyo dagaal ka gashay Gaza. weerarada aan kala joogsiga lahayn ee Israel ay ku hayso Gaza ayaa sii socda iyadoo 125 Falastiiniyiin ah lagu dilay, 265 kalena lagu dhaawacay 24 saacadood ee lasoo dhaafay. dibadbaxyada Falastiiniyiinta taageersan ee ka socda adduunka oo dhan laga bilaabo Johannesburg ilaa Washington DC waxay ku baaqayaan in la joojiyo dagaalka Gaza. dhinaca kale, tobaneeyo qof oo la xidhay markii cagaf-cagafyada Israel ay galeen Janiin oo ku taala daanta galbeed la haysto ugu yaraan tirada dadka imika lagu laayay weerarkaasi ayaa gaadhaysa 23,968. tiradii ugu dambeysay ayaanu isha saacadihii aynu kasoo gudubnay, iyadoo leeyahay dad aada u tiro badan ayay saameeyeen weerarada halkaasi ka dhacaya. waxaana ay gaarayaan 23,968 qof, in ka badan 60,582 qof ee lagu dhaawacay weerarada Israel tan iyo 7 bisha Oktoobar. qodobada kale ee iyana isha aynu ku hayno ayaynu isla sii eegaynaa saaxiibada aynu jecelnahay saacadihii aynu kasoo gudubnay. macluumaadka wararka iyo warbixinadii ugu waaweynaa ee warbaahintu ay baahinaysay dhinaca Gaza ha noqoto iyo sidoo kale caalamka waxyaabaha isha ay ku hayaan ayaynu sii eegi doonaa, iyadoo markaasi aad ka bogan doontaan macluumaad faahfaahsan oo si maalinle ah halkan aan idinkugu soo gudbin doono bartayada baahinta news oo ah warbaahin gaar ah oo aanu ugu soo gudbino dadweynaha macluumaadka markaasi taagan. iyadoo 100 maalmood imika laga joogo tan iyo markii uu dagaalka ka dhex qarxay marinka Gaza ee u dhexeeya Israel iyo sidoo kale aan yiraahdo Hamas, shacab badan oo reer Falastiin ayaa aad markaasi uga cabanaya xaaladda bini'aadanimo ee halkaasi ka taagan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin warbixin ay soo saartay ayay beesha caalamka uga codsatay in ay wax ka qabato xaaladda bini'aadanimo, gaar ahaan hay'adaha gargaarka, waxaana ay aad markaasi uga walaacsan yihiin xal waara oo aan weli lagu soo dabaalin gobolka wadankaasi Falastiin. iyadoo 100 maalmood laga joogo haddana tirada dhimashada iyo waxyaabaha sawirada halkaasi laga soo saaray ay yihiin kuwa naxdin leh. waayahay inta ayaan kusoo gabagabinaynaa warbixinadayada dambe. muuqaalka xiga ama kan kiisa xiga ka daawo bartan baahin news.